وعلى رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، الله تبارك وتعالى وأمته فرض عليه خاصة ركيضة صلاة الجمعة. الله هو يعطي وليه المؤمنين فيهم إيمان الجمعة الآذان وآذانك خطيب ومركو ممن تفوه آذانك أسفل آذانك كهرية ولو يقال آذان عثمان ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لكن يصفر في الخليفة الراشد عثمان بن عفان حاجة من درجة المرؤوكر في كاس لقوضة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكن وحا لقوضة آذانك marka imaamku uu mimbarka fuulo la aadaamayo oo kii nabiga uga sallallahu alayhi wa alihi wasallam aadaankaasi markuu dhaco Allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waxaad u degdegtaan dikriga Ilaahay xaggiisa. waa masjidka salaadii jumcada khudbada dhegeysigeeda khayraadka u degdega wadaru bayc iibkana ka tag ganacsiga ka tag beec iyo shiraha ka tag waxaa soo gelaya mashaaqisha kale lagu mashquulo dhan baa soo gelaysa wax alla wixii mashquul adduunya ah ka taga shuqul adduunya ah ka taga ilaahay dikrigiisa aadan qaabila sidaasaa idin khayr badan haddaad ogtihiin adduunya aakhira maslaxadii musaasi ku jirtaa. sidaa daraaddeed bay culimada muslimiintu in badani waxay ku tageen xilliga aadaanka jumcadu dhaco ilaa salaada jumcada laga tukado oo la dhammeeyo wixii beec iyo shiro iyo kala iibsiya dhaca iyo xaraaya. waxaana laga qaadanayaa wadaru lbayca nahyiga siiqada amni amarka ku yimid baa laga faa'iidaysanaya. jumcadii inaynu nimaadno waa maalin weyn, waa ciidda usbuuca, waa maalin loogu talagalay inay muslimiintu isugu yimaadaan masaajida, gaar ahaan ragga lagu waajibiyo, dumarka waajibka ma aha. mar kastoo uu ruuxu maalinta jumcada soo hormarana way fadli badan tahay oo uu dadka ka soo horeeyo. ruuxuu ka soo horeeyo uu ka fadli badan yahay, sida nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiisiisa ku tilmaamay ilaa marka imaamku uu mimbarka fulo soo gala masaajidka malaa'igtu ay waraaqahay qoraysiin qoraalkii dawaawiinta ay laabayso. sidaas daraaddeed kullama aad soo hormartahay way ka fadli badanta way ka fiicanta. ujeedada hadda allana waxa weeye iyo qasadka axaadiista ku soo arortay nusuustu way fara badan tahay. masaajidka markaad timaado oo khudbadu bilaabato maxaa lagaaga baahan yahay si aad uga faa'iidaysato? dad waxaa jira khudbadii fadhiya masaajidkii fadhiya haddana maca daalika ajir la-aan ay ku dhacayso khasaaray. dad waxaa jira laga yaabo bedelkay ajir la tegi lahayn inay dembi la tagaan. dadna wax weyn iyo khayr badan bay la gadoomayaan. sidaas daraaddeed ba laga maarmaan tahay markaad masaajid ka timaado khudbada dhegaysigeeda inaad ilaaliso aadaabta iyo shuruuda aad ajirka ku helayso, wanaagana aad ku xambaarsanayso, dembina aad kaga badbaadayso. nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo arrintaas tilmaamaya ama sharaxaya ayuu wuxuu yidhi nabigu sal alay wasalam khudbada waxaa yimaada oo soo xaadira saddex ruux buu nabigu sal alay wasalam. saddex noocoo dadka ka mid wuu yimaadaa khudbadii waa joogaa waa fadhiyaa laakiin wuxuu u galayaa laqwi. waxaan munaasiba inuu ku mashquulaya wuxuu ku mashquulayaa inuu fardiisa ku ciyaaro, wuxuu ku mashquulayaa inuu tusbax rogo, wuxuu ku mashquulayaa inuu mobaylka laga yaabo mobaylka dadka qaarkood iyo internetka inuu kuga jiraba khudbadiina waa socotaa wax kale ku jira. waxaa laga yaabaa inuu midka la fadhiyo la sheekaysanayo ku mashquulsan yahay, waxaan meesha ka socda waxaan ahayn buu ku mashquulsan yahay. kaas nabigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi meesha yimid ee khudbada ka mashquulay ee waxyaalo kale ku mashquulsanay wuxuu rasuulku sal alay wasalam dheeftiisa iyo wuxuu meesha ka helay waa laqwi buu sameeyey.
waxa uu sameeyay waxaan ahayn heli maayo waa khasaare maxaad meesha u fadhiday maxaad waqtiga usoo fadhiistay maxaad u fadhidaa soo inaad ajir hesho maaha soo in miisaanka xasanaadkaaga wax ku kordhaan maaha soo inaad ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag ka gaadha maaha ilaa wax kale baad u imaanin sidaas daraaddeed waa inaad wax kasta oo khudbada kaa mashquulinaya aad ka fogaato nabigeenu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi ruuxii quruuxa iyo dhagaxa hortiisa yaalla ku mashquulaayay laqwi buu leeyahay xadiid kale nabigu wuxuu leeyahay sal alla alay wasalam ruuxii midka garab fadhiya hadlaya aamus ku yidhaahda laqwi buu leeyahay xataa midka buu ag fadhiya xumaanta samaynaya daaca dhihi laanna hawl kalaad ku mashquulsan tahay wax kale inaad gasho maaha laqwi ha gelin khudbadaada jumcadaada ajirkeeda iyo thawaabkeeda usoo wax gaadhin ilaasho ruux waa ruuxa qayb waa qaybtaasoo wax kale ku mashquulayaan ajir la-aan bay tegayaan laqwigaa iyo waxa xunay sameeyeen unbay keliya ka helayaan wax kale ka heli maayo saasuu nabigu yiri sala allahu calayhi waali wasalam qaybta labaad iyo sinfiga labaad ee nabigu sheegay sal alay wasalam waa ruuxii yimid jumcada soo fadhiistay laakiin ku mashquulay waxaan khudbadii ahayn iska ducaysanaya dikri kale ku mashquulsan yahay qur-aanku hadduu doono iska akhrisanaya hawlo kaluu ku jiraa waa khayraad kaluu ku jiraa nabigu wuxuu yiri sal alay wasalam waa uu ruux ducaystay hadduu doonana ilaahay wuu siin hadduu doonana wuu diin يعني ماشي وحي ايش لو يما حلي الهوشي سينا ما حلي والبهو بينه حلي واحد شرع القران كالاخرين حلي واحد شرع الذكر كانوا مشغولين حلي واحد شرع الدعاء مشغولين حلي والروح الذكر ليس خاصك وليس خاصك سي حلي واحد لو طلق للجيس خطبه قران اخرس لو ما تلقين ذكر كان لو ما تلقين دعاء لو ما تلقين وأمرك ليس إله وضوء وسيد وضوء وجودي لكن خطبتي هو شيء يقول لي جمعتي هو شيء يمكن روح الصدحات من صلوات ربي والسلام عليه وأخذ خطبتي مصاحبة الجمعة هاي المبادئ النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسلوني هي اللي ليس يوم الرابع خطبة أيوة كتير wixii kaloo dhan waa iska xiray dareenkiisa iyo foxkiisu wuxuu jiraa xagga khudbada wax kale kuma mashquulsan jirkiisuna waa xasilay oo dhaqdhaqaaq male waxba kuma mashquulsan dhegtiisa iyo dhegaysigiisuna wuxuu jiraa dhanka khudbada biinsaatin wa sukuun wuxuu nabigu ku daray sal alla alay wasalam markuu imaanayeyna aan dadka ka tiltilaabsanin dadkii ka soo horreeyey aan ka tiltilaabsan meeshii u bannaanayd ee uu soo gaadhay uu fadhiistee dadka muusan ka tilaabsan mana dhihin axad dadkii muslimiinta ahaana aan dhibaato u geysanin af iyo adintoona aan dhibin wax dhibaataa lagalama kulmin khudbadii hadday bilaabatana iyadii uu ku mashquulay wixii kaloo dhanna waa iska xidhay kaa nabigu wuxuu yiri sal alla alay wasalam fahuwa kafaaratun lahu إلى الجمعة التي تليها ذنب الله فيقطعي والذنوب تساء إلهي قطافيا إلى الجمعة الصوصعة تلك ولما النبي صلى الله عليه وسلم سدح بريء الزيادة رمضان أكشف الزيادة يدوم الله زيادة وطلوع بريء الله السنين والنبي صلى الله عليه وسلم حي الله ووحيه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وكذلك روحي عمل ونكسل لي ماذا الحسنة روحي لي ماذا طب الله كذب إلهي سيديها ما كنت معي هذا السيساني أتبت سيدي عملتك الشروط لا إلى لسي فضلي إلي ستي وحال المسلمين يتمنبري وصوصع تدري الله قد يدرجات أقرار المسلمين ليش أصلا مقرر محمد marka waxaad iska ilaalinay haddaad khudbada timaado hadday khudbadu bilaabato sax khudbadu intay socoto waaye imaamku hadduu mimbarka ku fadhiisto laakiin khudbada usan bilaabin waa la hadli karaa sida qasriga khulafaa raashidiin
عمر يغير كوت كسوغا دبا تمله هادو خطبه كفريستو marka khudba ay socodina dib male laakiin haday khudbadii socoto wax kale inaad ku mashquushahay ajirkeedii ay saameyn ku leedahay wayna dadka iska ilaaliso dadka muslimiinta inaad dhibtana iska ilaali maxay adiyatul mu'min اللي يبغى هو كحرم روح المؤمن كان يميتيشو والدم بهذا صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ارجي السبب خطبه قلت كما من صوت وكسوق بالله بين ضدك كصوت الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم السبب خطبه يقول له فريسو وصوت العرب ضدك رواقي يساعد كفريسو صوت وحوي ضدك in la dhigo maaha waxaa la mid a dadka isla fadhiya oo boos la fadhiisan karo uusan dhexdooda oolin inaad intaad kala riixdo boos riixato iyadana maya laba ha kala geynin dadkana ha dhimin ha ka tiltilaabsanin dhibaataya lagaala kulmin ajirkaaga ilaaliyo khudbadu markay dhibaato bilaabatana si saaniya u dhegayso waxa kaloo dhan iska xil ayada ku mashquul سيدا مركز سميسو أجل بحالتي دبيدات بحالتي درجات بحالتي هذه هو خصائص وأنا لك مرة لأن السعي كأنه يتدار كأن مساجد تكون مدي مسلمين بدنا خير دوم بيننا وحداش إنك يعني شغال يسوعنا كراسي أروان من دويه أروان من أجل برداتين ما بلاش من أول أجل كي نقولني سيدا وحصلين لغينا وقاف قاسي النبي صلوات الله وسلامه عليه رشح النصوص سيده الثلاثه فائده كلامته خطبه الجمعه waxaa loogu talagalay in lagu daaweeyo muslimiinta qadaayadooda arrimahood gaar ahaan xaaladda marka taagan waxay u baahan yihiin in lagala hadlo akhradooda adduunkooda in ilaahay ku waaliyo waa saxiib marka jumcadaasi aad sahay qaadato wacdiga qaadato ila jumcada soo socotay ku argada hadana jumcada soo socoto sahay kala uu siinaya hada marka sahay qaado wada wax kale ku mashquushaay macna qasaasada sida sanadee ilaahay tabaaraka taala xamaashana aqbalo waxa loo baahan yahay inuu meel walba shariicadu aadaadka shuruuti ay dhigtay aynu ilaalino si Allah tabaaraka taala agtiisa inuu wanaag uga helo sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا اليك ردا جميلا واغفر لنا ما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل